ururka dhalinyarada ee Inspire Group ayaa habeenkii xalay magaalada Hargeysa ku qabtay xafladda abaalmarinta sanadka ee Somaliland Award. xafladdan oo ahayd mid lagu abaalmarinayay shakhsiyaadkii iyagu wax ku soo kordhiyay qaybaha kala duwan ee bulshada Somaliland. munaasabadan oo ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa ahayd munaasabad lagu dhiirigelinayo cid kasta oo la timaada hal-abuur ganacsi. ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah kooxda Inspire Group oo sharaxaad ka bixiyay marxaladihii kala duwanaa ee ay ku soo xusheen guuleystayaasha caawa lagu abaalmarin doono munaasabadan. waxaa noo soo baxay 214 shirkadood qof iyo maxay ahayd ganacsato isugu jirta kabacdi waan kala xulay noo kriteria adkeen ka aqri kartaan Somaliland Awards.com kala saarayna ayaa waxa kriteria buuxiyay koob iyo 20 ka mid ah marka halka xaalku marayo ayaa koob iyo 20kii maxay ahayd iyagu kriteria buuxiyay aan noo xulay todobo waxay la xiriirtaa shan waxay la xiriirtaa ganacsiga labana waxay la xiriirtaa xagga arrimaha bulshada laba kalena waxay la xiriirtaa iyaguna ashkhaas iyo qofof iyo qaranka meelo buuxiyay maanta iyo maalin horeba. sharaxaadaasi kadib waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana soo dhaweeyay hab fikirkan toolmoon ee ay dhalinyaradu ku dhiirigelinayaan curinta fikradaha kala duwan. mas-uuliyiin kala duwan oo siyaabo kala duwan uga hadlay qiimaha ay xafladani leedahay. dalkii waa dalkii wax weli loo bilaabo waa chance to the xagga industries oo sheegay wax walba dibadda laga keenay dalku noqdaa marka xagga industry ama xagga warshadaha oo kabihii la sameeyo wax walba la sameeyo markii la sameeyo dalku gudihiisa lagu sameeyo marka dambe ay dhoofiya dadka la xusaya waa dadka runta ah ee nolosha dadka Somaliland taabanaya waa ganacsigii iyo ciddii waxtar ku kordhinaysa dadka reer Somaliland. intaasi kadib kooxda Inspire Group ayaa shaaciyay guuleystayaashii kala duwanaa ee sanadkan ku guuleystay abaalmarinta Somaliland ee 2018. waxaan doonayaa inaan u yeedho qof aad Somaliland ugu qiimo badan. qofkaasi waxaan leenahay waxaad caawa joogtaa madal xubintii qaranka ugu sareysay adiga dartaa bartan u timid oo madaxweyne ku-xigeenka ah bilada sharafta ee ilaahay agtiisa ku taala iyo tay madaxda ku haysaba haddaad curadadaadii weyday haddii caruur agoona lagaaga tagay waxa garabkaaga taagan qaran ku shafraya oo ku qiimeynaya waad mudan tahay ilaa intaad imanaysa ilaa intaad daadegayso in lagu kaco oo lagu sabciyo oonu kuu bixinno dharkayaga si aad u istaagto. waa jaamac maxamed ismaaciil ciddii ku guulaysatay waxa weeyaan Haldoor Hospital. waxaan leeyahay mabruuk. ahnaankoodu waa halkii abkii hore gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo soo dhaweeyay tallaabadan ay dhalinyarada Inspire Group ay ku maamusayeen walaalahooda kala duwan ee iyagu la yimi hab fikirka toolmoon isla markaana wax ku soo kordhiyay bulshada Somaliland. waxaa runtii maanta dhammaantiin sharaf noo ah inaan caawa ka soo qayb galno isxilqaanka sharafta badan ee ay sameeyeen aqoon-yahanada da'da yar ee qurbaha ka soo noqday Inspire Group ee maanta ama sanadkan ku fikiray inay sameeyaan abaalmarin lagu dhiirigelinayo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Somaliland ee hal-abuurada kala duwan sameeya inaynu xusno waxay qabteen dalna meel ma gaadho hadduunu taariikh yeelan oo ummadiisa ciddii wax tartay iyo qofkii wax soo kordhiyay haddaan lagu qorin qalin lagu qorin dalna meel ma gaadho. ummaduna haddayna iyadu isqiimeyn bini'aadamku meel ma gaadho. qarankana wuxuu joogaa waqtigii isqiimeyn lahaa waxyaabaha la ragaadiyey iyo la is-eegayo qabyaaladda iyo waxba inoo taagna ku xiiqsannahay
ayna ka tagno ku tartanno waxa wanaagsan ku tartana dhammaanteen noloshu waa tartankuna qof kasta oo wax wanaagsan soo kordhiya ilaahay agtiisa abaal buu ku leeyahay qof kasta oo wax xun keena ama maartay waxyaabo xun soo kordhiya dadku soo kordhiyana waxa weeyaan ilaa yoomaddiin ummadda wixii dhibaatada u keenay kaga dayda isaga u ka taalaa Saddam Waya Arag, Sab TV.